iskuulka hoose dhexe ee deegaanka Laasa Curdan ee degmada Xudun ayaa xafladda sanad dugsiyeedka 2022 u qabtay ardayda dhigata iskuulka isla markaana waxa ka soo qayb galay xafladda gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Xudun waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka iyagoona hadiyado kala duwan gudoonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Sheekh Cabdullaahi Maxamed Burgal waxaana hadaladiisii ka mid ah sidan سنوسونا إن شاء الله بدشين واحد على سعي سنوسيتي وحوي لوضع كل يقول لا تنكا لوضع كل يلوي لا تنكا أرضي كالمها قلي جايسوي إن شاء الله لقدوسين أيوه إن شاء الله أرضي فرحة ونقيم سنة أرضي بعد إن شاء الله وحوي كالمها قلي كالم تقولون كالم تغلط وحوي مقرأ يستاهل وجرا على يابا أرضنا كلمها نهلين يبقى يسمودين هنا يدعين نطي أرضيه آدي آخر في عنده حق وحبرشتي حق أقوانه حق أقوانه إن شاء الله بسم الله الكريم سكولكم إن شاء الله أقولك كوبية هاي بكسي هوسة أيوك كوبية هاي سكولكم كله هنتي وليه هاي أفر قل يدور سورة وليه هاي قرن أيها وحوي مرتيدو وحوي قرن باجر وحوي عديد ومقلنا ومرتي مقالة إساء وحوي واي وحبرشدي ويسعد وتوجيك الوينية برجل ده وحنقول عصرنا سالتنا وحوي وحبرشدا وحوي وزيرك وحبرشدا مضني أحمد محمد ديرية يقدميها بولكا وضن داهر محمد وضن داهر أحمد محمد يقدميها دكتور عطر وضن عبد القادر وحنا كل عصرنا إن وحوي مثل وحبر شيء حقوقا نقول إن هاي أمرين لا سعودنا نقول إن نسوق جالسيان حفلة والحفلة هي وحفلتها أنتم كذا kuwa ugu qiimaha badan oo oran karo magaalada Laasa Curdan wax yar bay soo martay xafladda kale inaynu maanta u joogno u fadhino sanad dugsiyeedka cusub ee 2022 arday cusub oo ka kooban tiradoodu gaarayso 200 ku dhowahay oo intooda ay u gudbayaan dugsiga hoose dhexe fasalka 6 وتاريخ ما تورن كورن Laasa Curdan waxay u leedahay qiimo weyn qiimo aad u weyn bay u leedahay oo la rabo inaynu ku shukrin noqono Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay la in shakartum la aziidannakum wa la in kafartum in 'adaabi la shadiid haddaad nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadnaqdaan oo hareeraha isu qabsataan oo inay qiimo leedahay aad u aragtaan dhamaantiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiin siyaadinaya لكن هداد ضيعضان وإلهي نمعدي ساعات كم هنقي ويدان عذابك إلهي ودريها إلهينا ويدن امتحام يا سبحانه تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بان السلام يا مركب ورئيسا dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka 2022 ee degmada Laasa Curdan waxaan u malaynayaa waa markii ugu horeysay ee aan imaado ama aan ka soo qayb galo xaflad furitaana sanad dugsiyeedka 2022 waxaan u malaynayaa shucuurtaydu aad baan ugu faraxsanahay inaan da'yar faraxsan oo jaayisooyin qaadanaysa oo waalidkood garab taagan yihiin iyo macallimiintii ku soo tabcay oo Ilaahay waqti isugu simay aan isugu nimaadno goobta khayrka qabta ee sanad dugsiyeedkani ka furmi doono waxaan rajaynayaa sanadaha dambena inaan sidaa hadii Ilaahay idmo waqtigu ii saamaxo inaan farxadda carruurta da'da yar ee aan mas'uuliyadooda qaaday inaan la qaybsan doono sanad dugsiyeed walba إن شاء الله بسم الله الكريم مركا كواد وحن لا يرديد دداشي كالمها قشي وينو دعينا دمانتود وين فرحات قليان عرورتا دادا ير دقمدا Laasa Curdan ka baxaysa
Cabdilaahi Maxamed Kaarshe TV-ga qaranka Somaliland